sugan degmada dhuusamareeb ayaa sheegay in ilaa iyo 5 diyaaradood waxa ay sidee la sheegay in ciidamo iyo saanad military keentay kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada ayaa soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya ku howlan dhismaha galmudug. ciidamadan saakay ka degay dhuusamareeb ayaa noqonaya qaybtii labaad, waxaana xusid mudan in maalintii shalay degmada dhuusamareeb laga soo qaaday ciidamo ka tirsan ahlu sunna wal jameeca oo laga dejiyay magaalada Muqdisho si loogu furo tababaro. degmada dhuusamareeb waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta sarsare ee ahlu sunna wal jameeca oo suluugsan sida dowladda Soomaaliya ay u maamulayso sugidda nabadgelyada degmada dhuusamareeb. Generaal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaalada magaalada dhuusamareeb oo ay isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda al-sunna. Galaal oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in xiisad culus u dhaxaysa ciidamada dowladda ay ka jirto dhuusamareeb iyo kuwa ahlu sunna ayna ka taagan tahay magaalada dhuusamareeb. Galaal oo ku sugan degmada Guraceel oo uu waayadan dambe ku noolaa ayaa sheegay in ahlu sunna ay ka careysan tahay heshiiskii ay la galeen dowladda iyo qodobo qaar aan la fulin iyo ciidamada ay dowladda ku daadgureynayso degmada dhuusamareeb. waxaa kale oo uu sheegay in ay gaartay war la xiriira in ciidamo iyo saraakiil ka tirsan ahlu sunna ay saakay la doonayeen in Muqdisho loo qaado ay diideen isla markaana ay xeryahoodii dib ugu laabtay. Generaal Galaal ayaa ugu baaqay labada dhinac inay xaaladda ka dhigaan mid degan si looga baaqsado dagaal. waxa uu sidoo kale shaaciyay generaalka in ka qaaday in madaxda dowladda Soomaaliya ay dhuusamareeb ku wajahan yihiin qorshe la xiriirta sidii ay ku soo noqon lahaayeen doorashooyinka soo socda ee 2020. dowladda Soomaaliya ayaa horey awood ugula wareegtay maamulka koonfur galbeed balse ku guul dareysatay Jubbaland, waxaana hadda muuqata inay awood kale ku dayeyso galmudug. magaalada Colubus ee gobolka Ohio lagu soo dhaweeyay xildhibaan Suleymaan Maxamed Xaashi Xuub Sireed ahna gudoomiyaha xisbiga himilo qaran ee dalka Soomaaliya. xildhibaanka oo baryahan hadafkii xisbiga uu u sharaxayay qurbo-joogta Soomaaliya ee waqooyiga Ameerika, wuxuuna hore kulan ugu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. xildhibaanka ayaa kulanka soo dhaweynta ah waxa uu ka qayb galay dadweyne aad u fara badan iyaga oo dadkii halkaasi ka hadlayay ay ugu soo dhaweeyeen ujeedada xisbiga himilo qaran, waxayna dadweynuhu siteen sawirada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaas oo ah sida la filayo musharaxa xisbiga doorashada ee soo socota ee Soomaaliya. Aadam Xaaji Xuseen oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha kulankaasi ayaa u sheegay inay dadka reer Colubus ay aad u soo dhaweeyaan xisbigan himilo qaran oo ay u arkaan mid wax ka bedeli kara hanaanka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. waxa uu raaciyay in hoggaanka xisbiga uu yahay mid la soo tijaabiyay, madaxweyne Shariifna uu yahay hogaamiye Soomaaliya oo hufan iyo wanaag badan laga tabanayo. kulankan ayaa waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimada, haweenka iyo dhalinyarada. gobolka Ohio oo aad moodo inay goobtaasi kulanka ay aad u soo camireen xildhibaan Xuub Sireed, gudoomiyaha xisbiga ayaa khudbad dheer oo qoran oo dhinacyo badan taabanaysay kulankaasi ka akhriyay isagoo aad ugu hadlayay ahmiyadda xisbiga oo uu sheegay in uu yahay mid ka fog qabyaaladda ama kooxaysiga, ayna doonayaan inay dalka ku hogaamiyaan horumarin iyo barwaaqo iyo bashbash.